السلام عليكم ورحمة الله. waxaan rabay inaan kelmadeydan ka iraahdo khilaafka u dhaxeeya dowladda federaalka iyo ninkan qaramada midoobe ee meesha geysatay ee Soomaaliya ba xukuma ee la yiraahdo Nicholas Haysom. Yaan rabay inaan kelmad yar iyo maqaal yar oo walaalaha kamid uu qoray inaan idiin soo gudbiyo Soomaalida maadaama ay tahay dad aan wax akhrinin laakiinse waxaan la yiraahdo word of mouth ka uu yahay very powerful yaa waxaan rabay inaan hadal ahaan idinku soo gudbiyo oo anigu idiin akhriyo. waa sheeko yar oo aad iyo aad aniga ii qanacay dadkuna aan isleeyahay way ku qanacayaan haddii ay dhageystaan ama ay dhageystaan sheekadan yarta ah ee uu ka sameeyay Nicholas Haysom oo ah ninka qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya iyo dowladda uu farmaajo uu yahay garhayeenka uu yahay. wuxuu maqaalkiisa ugu magac daray maxay ka nuugtaa ama se ku nuugtaa ayuu wuxuu uga dhigay maqaalkiisa walaalka qoray maqaalkan oo la yiraahdo Sultan Afyare ama Sultan Garyare saasan mareynay maqaalku wuxuu ku bilowday sidatan jawaab celino kala duwan ayaa laga bixiyay qoraal xalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka oo lagu sheegay in wakiilka qaramada midoobay ka shaqayn jiray Soomaaliya khilaaf uu soo dhaxgalay ayaga dowladda khilaaf ayaa soo kala dhaxgalay dowladda farmaajo iyo ninka lagu magacaabo Nicholas Haysom oo dhalasho ahaan ka soo jeeda waddankan Koonfur Afrika balse haysta dhalashada waddankaasi carigaasi Ingiriiska. aqoonyahan Maxamed Sultan Garyare oo aad ula socda xarigjidka siyaasadda Soomaaliya ka jirta ayaa talaabadan ku tilmaamay mid aan socon doonin isagoo sabab uga dhigay in dowladda federaalku ay tahay dowlad madiidin u ah gacantana ugu jirta dowladaha reer galbeedka iyo qaramada midoobay iyo waliba muxuu ahaa Afrikaanta madow. maxay ka nuugtaa ama se ku nuugtaa ayaa maqaalka uu ka qoray sidan ayuu uga dhigay muxuu ahaaye title-ka. hadda ka hor ayaa Dhurwa ka cawday magaca Dhurwa buu waxa ka cawdaa la yiri Dhurwa oo wuxuu yiri magacaad u falxun weeyo waxaan doonayaa in la iga bedelo oo waxaan doonayaa habar dugaagta isu timaado in magacan la iga bedelo layguna yeero amiin la igu yeero nin amiin ah oo waxba xadin waxna cunin in la igu yeero. habar dugaag ayay waxay Dhurwa u sheegeen in magaca cusub ee uu dalbaday loogu wanqali doono haddii uu fuliyo shuruudaha soo socda. waxay u keeneen hal iyo nirigteed waxayna yiraahdeen caawa waa in agtaada barido hashan iyo nirigteedu si berito lagugu wanqalo oo magaca cusub lagugu bixiyo. waa Dhurwa oo ama aamin magale habeenkii ayuu wuxuu yiri ma cuni kartid hashan waa hashi berito lagugu wanqali lahaa iyo nirigtee waxaad samaysaa xubno muhiim ah oo aan la garanaynin ka cun caawa beritana ayagoo nool ha loo yimaado si lagugu wanqalo oo lagu siiyo magac lagaaga bedelo. subax la balansanaa ayaa habar dugaag oo dhan isu timid Dhurwaagii oo hashi iyo nirigtiiba haya balse waxay yiraahdeen maysan dareemin xubnaha ka maqan hasha iyo nirigta midna ka maqan. Dhurwa ayaa waxay ku yiraahdeen amiinow hasha noo soo qodur oo caawa caano nooga soo lis. Dhurwa ayaa ku jawaabay maxay ka nuugtaa maxayse ku nuugtaa ilaan waa hal naasihi laga cunay iyo nirig afkii faruurihi laga goostay wey. haddaba qolada shalay warqadda iska qortay ee tiri waxa aanu cayrinay ninkii iyaga madaxda u ahaa gaalka Haysom oo ku soo barbaaray dhaqanka midabta koorka ee apartheid la yiraahdo afka qalaad lagu yiraahdo Soomaaliyana loo keenay inuu dhaqan xumadii uu dalkiisa kala yimid uu baro ayaa waxay u egtahay Dhurwaagii hasha iyo nirigta looga tagay ee la yiri xaqulin caawa. su-aasha isweydiinta mudan ayaa ah horta marka laga reebo inay warqad xariiqeen ma awoodaan inay dalka ka saaraan ama ka bax yiraahdaan sayidkooda ayaga sayidka u ahaa ee mushaharka askartooda iyo ayagaba gacanta ku hayay. arrintu waa maya waxaanad ogaataan inay ku dambayn doonto in inta yar hadda ay yabyabeen ay isku hagaajiyeen ee waa dowlad ay leeyihiin inay ku ciyaaraan maadaama ay sayidkii dowladda gacantiisa ay ku jirtay ay yiraahdeen waddankan ooga bax. maqaalkii halka ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan idin leeyahay intaanu kulankan oo kale ku kulmi doono. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.